waxaan wanaagsan gabi ahaantiinba daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda hadaan oo kale ka daawataan channelka Gobson TV qodobada ugu door corona aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya abaabul dagaal oo ka dhana kooxda Al-Shabaab oo ka bilowday gobolka Bakool xukuumadda Somaliland oo jawaab kulul ka bixisay go'aankii mucaaradka taliyaha ciidanka maamulka Somaliland oo ku hanjabay inay tallaabo culus ee qaadi doonaan haddii ay mucaaradku isku dayaan arrinay ka dhawaajiyeen inay markaasi ku dhaqaaqaan xaaladda maamulka Somaliland oo sii xumaanaysa meel soo bandhigtay ciidamadii ugu badnaa saacadihii ugu dambeeyay oo dagaal ka dhana Al-Shabaab abaabulaya imaam iyo macallin dugsi oo goor dhaweyd lagu dilay magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena daawadayaal intaan guda gelin faahfaahinta qodobadaasi waxaa si xushmad ku jirta kaaga codsanaya daawada inaad channelka subscribe taabato muuqaalkan like dhahdo oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weeliya baraha bulshada mar waliba daawada waxaan u taaganahay inaan ku soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan nagoo markaasi ku baahina halkan daqiiqada ka dambeysa waa maalinimo Isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 14 bisha 11 ee November sanada 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan waxaa deegaanka caate ee gobolka Bakool ka bilowday kulamo looga tashanayo howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab kaasi oo yeesheen saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo kuwa dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Liu Booliska loo yaqaano saraakiisha ciidamada iyo maamulka deegaanka Caato ayaa ka arinsaday sidii deegaanada gobolka Bakool looga bilaabi lahaa howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab iyadoo dhowr jeer ay Al-Shabaab weerareen deegaanka Caato ee gobolka Bakool gudoomiyaha deegaanka Caato Dubad Xasan Cali oo ka warbixiyay kulamadan ayaa sheegay in ujeedka uu yahay sidii ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed iyo dadka deegaanka iyo kuwa dawlad deegaanka Soomaalida ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka kooxda Al-Shabaab waxa uuna hadalkiisa intaasi ku daray in sidoo kale ay diyaariyeen ciidamo deegaanka ah oo hubka qaatay kuwaasi oo ka qayb qaadan doona xoreynta deegaanadan ku dhow deegaanka Caato iyo guud ahaan ee gobolka Bakool sidoo kalena dhawaan deegaankan ay soo gaari doonaan ciidamo hor leh muddo hadda laga joogo 3 bilood ayaa waxaa deegaanka Caato ee gobolka Bakool ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda kuwa Koonfur Galbeed iyagoo Al-Shabaab ee deegaankan ka dhigtay marin ay u maraan dhulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dhanka kale tana beesha Duduble ayaa ciidamo hor leh waxay ku soo bandhigeen deegaano kamid ah gobolka Galgaduud oo yaraan 30 gaadiidka dagaalka ah iyo ciidamo badan oo ay hogaaminayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa gaaray deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud ciidankan ayaa loogu talagalay inay ka qayb qaataan howlgallada lagu doonayo in Al-Shabaab looga saaro deegaanada ku yaala bariga gobolka Galgaduud saraakiisha iyo mas'uuliyiinta kale ee la socota ciidamadan ayaa sheegay in hadda loo diyaarsan yahay iska xoreynta kooxda Al-Shabaab isla markaana dhawaanay howlgali doonaan dhawaan ciidamadan ee ka tirsan kuwa dawladda iyo dadka deegaanka ah ee hubka qaatay ayaa la wareegay deegaano ku yaala bariga gobolka Galgaduud sida deegaanka Qaayib iyo deegaano kale oo markaasi hoostaga dhanka kale tana xukuumadda Somaliland ayaa jawaab kulul ka soo saartay go'aankii ka soo baxay xisbiyada mucaaradka ah ee wadani iyo ucid oo xalay shaaciyay in Muuse Biixi aysan u aqoonsanayn madaxweyne kadib 13 ee bisha November oo shalay ku beegnayd wasiirka arrimaha gudaha maamulka Somaliland Maxamed Kaahin Axmed
oo uu ramay wariyaasha ayaa shaaca ka qaaday in hadalka ka soo yeeray mucaaradka uu meel ka dhac weyn ku yahay qarannimada Somaliland ayna sidoo kale tahay arrin ayaan dara ah. waxa ayaan dara ah in dadkii dalkan ka doonayay inay xukumaan ummadda codka ka doonayay ay yiraahdaan dalkan doorasho kama jirto xisbiyadu waxay mucaarad ku yihiin qaranka Somaliland ayuu yiri wasiir Maxamed Kaahin Axmed. sidoo kale waxa uu tilmaamay wasiirku in go'aanka ay ku dhawaaqeen xubnaha mucaaradka uu yahay wax laga xumaado isla markaana dhaawacaya dimuqraadiyadda Somaliland. Kaahin ayaa sidoo kale ku eedeeyay xisbiyada wadani iyo ucid inay wadaan abaabul kacdoon bulsho ah si loo kiciyo dadweynaha reer Somaliland sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale taliyaha booliiska Somaliland sareeye guuto Maxamed Aadan Saqadhi dabagale ayaa ka hadlay xiisadda kacsan ee Somaliland isagoo digniin adag u diray hoggaanka xisbiyada mucaaradka maamulkaasi iyo sidoo kale taageerayaashooda. dabagale ayaa wacad ku maray in ay ka hortagi doonaan rabshado ka dhaca Somaliland isla markaana ay adeegsan doonaan awood ciidan haddii mucaaradku tallaabo qaado. booliisku waxa ay isu yimaadaan qofka shuruucda dalka ka hor yimaada dadka faraha la gala amni darrada dadka wixii soo baxa qaladaada nooca uu doono ha ahaado sameeya way is arkayaan ayuu yiri. dadka kale wuu ilaaliyaa qof waliba gurigaaga ku jir qof walba shaqadaada qabso oo amniga garab istaag ayuu yiri sareeye guuto Maxamed Aadan. Somaliland ayaa wajahaysa xaalad hubanti la'aan ah taasi oo ka dhalatay go'aan ka soo baxay mucaaradka oo iska diiday muddo kordhintii dhawaan loo sameeyay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoo shaaciyay inay qabsan doonaan doorasho xor iyo xalaal ah. daawadayaal qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamij wareedkeena. haddii aad nala soo gaartay qaybtan daawade waxaa si xushmad ku jirta kaaga codsanaya inaad channelka subscribe taabato muuqaalkan like dhahdo oo aad u sii share gareyso saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliyo baraha bulshada. mar waliba daawade waxaan u taaganahay inaan ku soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan anagoo markaasi ku baahina halkan daqiiqada ka dambeysa. wixii aragtidaada waxaa noogu reebi kartaa qaybta hoose ee commentiga. mar waliba la socodka iyo la jaanqaadkaaga daawade waan kaaga mahadcelinaynaa.